markab baa la soo diiwaan geliyay, shirkad baa soo diiwaan gashatay, calanka Soomaaliya la soo saaray. dabcan haddana Somaliland baa laga soo sharciyeeyay, hay'ad kale loo sii samaystay logistiga, nin wasiir ahaa jiray baa samaystay, nidaam baa la isku xidhay. walaalkay Suleymaan iyo tiimka horu fadhi waxaan mahad celinayaa arrintan iyo baaritaankan aad soo saarteen. waa arrin aad loogu farxo. waxaan rajeynayaa oo in badan la sugayay oo meesha ugu weyn ay Soomaaliya maanta ka dhimatay waxa weeyaan xagga warbaahin isxilqaamo oo si daacada wadankooda ugu shaqeeya oo baaritaamo badan soo saara. su'aashaad markaad ka warramaysay waxaa tiraahday arrintu gabagabayn waxa u taalaa dowladda Soomaaliya. Suleymaan oo walaal waxaan doonayay inaad ka jawaabtid bal maxaa laga fili karaa dowladda Soomaaliya mar haddii xildhibaano badan ka soo jeeda degmada ama deegaan ka soo jeeda Somaliland maanta aan garanayno xaggay ka joogaan qadiyadda Soomaaliya. taas waa su'aashii ugu horeysay. su'aasha labaadan qabo ma la rajayn karaa insha Allah baaritaankan inuu sii socdo oo arrimo badan oo kale ku xidhan, waayo waxaan waa shabakad isku wada xidhan iyagoo qabiil kuma shaqeeyaan laakiin qabiil baa lagu qanimaystaa ummadda Soomaaliyeed. man rajayn karnaa insha Allah xagga lacagta khaasatan waayo oo taas hadalkayga wax doonaa adeer Axmed hadalkuu sheegay iyo khaasatan lugta ay ku leedahay Djibouti. aniguna madaragtay Djibouti baan ka soo jeedaa. labada bank Salaam Bank iyo Dahabshiil ba madaragtay hasaldhigooga waa Djibouti. waan ognaho proof badan way soo baxeen, cadeymo badan way soo baxeen, dad badan oo shabaab oo dhaawacmay iyo ragooga sarsare baasaboro ay ku dhoofaan iyo si loogu soo dhaweeyay Djibouti. marka lacagta xagga lacagta wax walba marka la qabanayo waa lacag ba u muhiima. xaggaasna inaan baaritaanku sii socdo khaasatan maanta nidaamka jira Soomaaliya markay noqoto labada bank ugu waaweyn saldhigooguna Djibouti yahay iyo lacagta waxaan ku xidhan waayo hubka inta lag doonida la soo shaqeeyay waxa soo dhan lacagtu xaggee ka timiday. iyo khaasatan xildhibaanada oo markay noqoto baarlamaanka iyo hay'adda ugu sareysa ummadda Soomaaliyeed oon aragnay dadka metelaya dadka degan Somaliland maanta qadiyada ka taagan Soomaaliya iyo goonistaag ka taagan arrintaas. su'aaladeeda intaas ku saabsantay waad mahadsantahay walaal. assalaamu calaykum. Cabdiraxmaan waa mahadsantahay, aad mahadsantahay. horta runtii marka oraysa waxaa muhiim ah in laga fekero intaan bangiyada laga fekerin ama iyaga aan toos loo eedayn in la yiraahdo horta nidaamkan qofka lacagta raba inuu sameeyo nidaam sharciya ma maray. meeshan waxaynu ka aragnaa hadda warqadahan iyo dokumentiyada waxaad arkaysaa hanaan waxaa la maray dowladu ku leedahay. warqad markab baa la soo diiwaan geliyay, shirkad baa soo diiwaan gashatay, calanka Soomaaliya la soo saaray. dabcan haddana Somaliland baa laga soo sharciyeeyay, hay'ad kale loo sii samaystay logistiga, nin wasiir ahaa jiray baa samaystay, nidaam baa la isku xidhay moogtay. marka adigoo hadarto wasiir ahaa jiray oo nin oday oo akhyaar oo la yaqaano dad ama Dahabshiil u tagto ama Salaam Bank u tagto dee akoon waa lagu furaya, lacagna waa lagu xawilaya. waxaad dhahaysaa dahab baan kasoo iibsanayaa ama bariis baan kasoo iibsanayaa Cumaan baad dhihi kartaa simply moogtay. marka aniga I don't think in ay bangiyadu eed leeyihiin. eed waxa iska leh waa waxa dowladaha sheeganay. nidaamkan dowladaha sheeganaya loogu talagalay inay iyagu arrintan qabtaan oo bangiyada waa regulationka dowladda u samaysa. yani ayaga regulate gare ahayd marka meeshaas waxaan malaynaya meesha ku dhamaalahayd inay tahay dood, laakiin meesha ka bilaabanaysa waxa laga qaban batii la arkay waxa laga qaban. waxaa aragtaa dad mas'uuliyiin oo la shaqaysanaya cadowga ummadda Soomaaliyeed oo hubka u soo dejinaya baaba la hayaaba oo mas'uuliyiin oo iska bacad oo hebel iyo hebel loo garanayo oo iyagu bedel qaadanaya, lacag qaadanaya, kadibna hubka wixii lagu gumaadayo iyo wixii aan san shaqo ku lahayn oo aysan dhahay yani iska bariyay banaanka ka jooga. tan oranaysa sabay macquul u tahay mar haddii ay Somaliland xildhibaano ka soo jeeda ay joogaan Muqdisho ay arrinta ka hor imaanay. runtii aniga waxay la tahay in dadkan xildhibaanada horta sheeganaya maxay xilka u dhibaya ummadda Soomaaliyeed inay dhiigooda iyo maalkooda iyo mustaqbalkooda badbaadiyo ma yaa laga badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed dhiigooda iyo maqalkooda. ciddii dilaysaba ma cid kastaba bay noqon karaan. marka haddii qofka dhibaatada geysanaya uu ka soo jeedo deegaankaaga oo aadan qaba karin oo dhibaatada ka qaba karin ama aadan qayb ka noqon karin dowladnimada, waxay la tahay taas waa masiibad haysata marka oo ummadnimadii Soomaaliyeed baa markaa hadal ku jiraysaba inay ummad ahaato dowladna markaa ma ahaa karto dabcan.
muqdisho markaad weligeed degi mayso hadday arrintu dood saa noqoto laakiin uma firayo inay saas tahay oo waxaan aaminsanahay dad badan oo xildhibaan ah oo deegaanadaas ka yimid inay yihiin dad ilaah yaqaana oo Soomaali ah oo Soomaalinimo meesha u jooga inay ku jiraan baa dhici karta waa jiraan dad badan oo leeyahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii kama shaqeynayaan oo waxay ku jiraan saraakiil dawladda waa nasiib dar iyo ayaan dar waana jabinta sharciga la leeyahay waa lagu dastuurka la jabiyay waana xadgudub lagu sameynayo yani wixii loo dhaartay dee taas waxay u taallaa dee odayaasha dalka madaxda ka ah runtiina dee ummadda Soomaaliyeed dareenkaas way qabeen waana lagu celcelinayay laakiin waxay la tahay dad wanaagsan inay jiri karaan taasaan kaga gudbanaa insha Allah marka soo gabagabeynayna Jibriil iyo Injineer Muuse iyo Cabdifataax baan sii doonaa haddii alla idmo kadib waan soo doonaa insha Allah سليمان حاشي رمضان وناكسن injineer iska xidha rabadaan wanaagsan waa ku salaamayaa madashana waa salaamayaa waan kugu bogaadinayaa maaragtay xogtan muhiimka dadka Soomaaliyeed oo ah inaad la wadaagtay Salamaanow laba su'aalood baan dib kugu celinaya adiga hadhow markaan teedan yara ka baxo oo qodobka koowaad ee ah in heshiiska Laascaanood uu ka horeeyay heshiiskan bal xogaada yara faahfaahin karto qodob kale waxa weeyaan xogta ku saabsan Sheekh Cabdinaasir oo ahaa sheekh beledkii gobolka Sool oo Kismaayo lagu dilay marna isku day dil ka badbaaday xamar inaad ka xigatay adoo xiganaya hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya xogta horumar dhifidii adiga la wadaaga bulshada Soomaaliyeed hadaad qodob iyo laba iyada lafteeda yare taaban karto aad bay dadku baanan u loo danaynaya arrintaas lafteeda oo faahfaahinteeda way wanaagsan tahay marka anigu teedaan u noqonaya marka waxa weeyaan horta arrintan ah isku milanku dadka xogaalka ama dad badani way ogaayeen haddaan dhowr yaro tusaale soo qaato marka ay buurta galgala ku beermiyeen 2007 ayay ahayd intii hore ma jirin halkaas ku beermeen bilowgii nin atam la oran jiray ayaa wakiilo ahaa oo deegaamada u dhashay madaxjabis ugu horeeyay boos ka sameeyeen 2008 dhamaadkeedii bay ahayd qaraxii ugu horeeyay oo ay boosaaso ka fuliyaan wuxuu ahaa 2008 Oktoobar 24 maalin Talaado ah hay'adda BST laba xarumood ay lahayd qaybta forska ciidanka iyo qaybta dharcadka ah ee xogta labada xarumood oo bariga magaalada iyo waqooyiga magaalada bus ku kala yaala ayaa laba gaari ay u qaybiyeen oo kala direen oo ay ku dhufteen 10kii barqanimeyn ahayd markay ku dhufanayaan isla subaxaas isla saacada laba qarax bay ka kala fuliyeen qonsuliyadda Hargeysa ku taala Ethiopia iyo madax Hargeysa taasna waa tayo yarba haday xusay oo taariikhdu ka yara khaldaneed taasaas anigu waxa dhacay dhowr dagaal ayaa wax ka dhacay meesha tuulada la yiraahdo af urur oo dhinaca koonfurta u jeeda koonfurta waqooyi koonfureed u jeeda marka buurta la galiyo galgala ama calmadow oo laamiga meel la dhaho waxa looga leexdaa jingad ama kala baydh eeriyadeeda halka xarun ciidan weeyaan dhowr jeer bay gaadmo ku sameeyeen oo waabir ah waxa jiray gaadmo kamid ah oo 2016 dhamaadkeedii ay ku sameeyeen halka oo ay ku dileen ilaa 70 ciidana iyo sarkaalkii watay oo lagu magacaabi jiray tusbaxle oo reer Sanaag ahaa iyo wiilkiisuna ku dhintay marka waxaan uga socdaa halka 2013 dhamaadkeedii ayaa beelaha dega Sanaag degmada Laasqoor iyo degmada Badhan iyo magaalada Hadaftimo waxay si uqaal iyo dad isku jira iyo aqoon-yahan iyo dad iswada wata siyaasiyiin ayaa waxay si jamaca waxay u aadeen Hargeysa maamulka Hargeysa ayay waxay la galeen heshiis inay deegaamadoodana ay geynayaan afkaartan iyagana lagu xilo loo magacaabo marka dadkii waxa loo kala saaray ciidan iyo civil macna dad siyaasiyiin gudoomiyaal gobol gudoomiyaal degmo iyo sarkaalkii ninka tusbaxle oo hore aan uga tirsanaan jirin maamulka Soomaaliland ayaa odayada la soo ayaa sarkaal aaga Laasqoor lagu soo magacaabay waxa la siiyay dhowr gaari oo haartooba iyo qoryihiisa saarnaa tikid berber looga soo saaray iyo baabuur raaxa oo dadkii kale cuqaashi waxa loo qaybiyay iyo kuwii gobol degmooyinka Laasqoor markay yimaadeen ninkaasi nin arrintaasi ka fog buu ahaa aan qorshaha wadan markuu yimaadeen ayuu odayaashu wuxuu ku yiri iga raali ahaada
gaadiidkan shacabka laydin siiyey shacab baa tihin ama dadkii lahaa u celiya maamulkii ama isticmaala idinka taa laakiin baabuurtan gaadiidkan iyo hubkan ma celinayo deegaanka ku difaacanaya sidaas ayuu daraawiishta puntland uga mid noqday nin wuxuu ahaa aragti fog oo deegaankan galgala meeshan uga socda waa halka muhiimadu ciidamo badan baa galgala ku jira laakiin ciidan haddii haddeer wax xilliga kan kusoo aaday macawisleyda nin mustaqbalka macawisley deegaanka abuuri lahaa oo si run ah oo mashruuca ka baxsan ula dagaalami lahaa nimankan ayuu ahaa iyaguna aad bay ninkaas ay u ogaadeen marka ninkaas waa halkaasaa lagu shaqoolay lasoo weeraray ciidankii buurta ku jiray ciidan xoojina ayaa loo soo diray oo 80 nin ayaa dadka miyiga hadaafsimo degan habeenkii horena weerarka ay sameeyeen gudbay baa la sheegay markii weerarka ay ku soo fuliyeen ka bacdin hadaaftii mareen sida isu socod furan ah ayay ceergaabo u mari jireen iyagoo dhanka burco ka yimaada waxa jirtay muddo 2007 ilaa 2000 iyo intii ka dambeysay oo buurta way dahab bay ka baaran jireen dahabka suuqyada burco iyo waqooyiga xagga waqooyiga u furneed oo loo gudbin jiray badanaa saadkun xaggaas ka iibin jiray waxa kaloo iyana xusud mudan maxamed siciid atam bilowgii markuu dagaalka ku horreeyayna ashaab ay puntland ku qaadana wuxuu ahaa 2009 kii dhammaadkiisii ayay weerar kusoo qaadeen oo magaalada laag la dhoo kantaroolka halkaasaa lagu jabiyey kaasuu weerarkuna ahaa intii ka dambeysay oo dagaalku 10kii bas fiican u qarxay laakiin markuu dagaalku qarxay bilowgii 10kii dhammaadkiisii waa laga wareejiyey atam waxaana loo wareejiyey ilaa haddana maamulo logistikada qaybta maaliyadda qaybta ciidanka wax kasta dhulka muhiimka ah oo dhan dad ka soo jeeda deegaamo kale oo waqooyiga iyo badan marka arrintaasna waa arrintaa waxa weeyaan xusud mudan halkan inuu madaxweyne gaas ka sheegay inuu nin maduura la dhaho oo safiirkii ingiriiska ee Ethiopia uu fayl hor dhigay xogta ah in isku milan jiro shabaab iyo maamulka waqooyigu uu ku yiri xataa haddii jirto kor ha u sheegin wuxuu ku sheegay kaas xusud mudan uu yiri markii Michael Keaton Soomaaliya loo qaadanay oo qaybsamaha arrimaha Soomaaliya ee UN-ka inuu ninkaas short list ka soo galay laakiin nasiib wanaag aanu noqon qof Soomaaliya loo qaatay oo halkaas in Ilaahay naga badbaadiyay marka salaamaana waan ka baxay waxaan way jirtaa laakiin dadka Soomaaliyeed inay baraarugaan oo hordada ka kacaan oo wali miidiyuhu uu xil qaamo oo uuna hal abuur la yimaado waan kugu badanayaa hal abuurka miidiya hal abuur kale ku jirta oo ah inaad maaragtay qofku uusan iska sidii youtuber kale iska noqon marka aad baad misalman hadda kelmad qoraal ama soo dhigta aad baan uga helo ahaa qof bay wareysanaysaan wuxuu ku leeyahay sidii maxkamadda anagu cadeyn ma hayno waxaan ku soo qaatay isla wareysi wiil uu ka qaadayo hay'adda Adesa ee gobolada Sanaag ka shaqeysay Faadimo Jaamac Jibriil oo maaragtay ma hadda kornel abaalmarin lagu siiyay arrimaha deegaanka waana asal ahaan Mareykan bay ka soo dadka Mareykanka qurbo joogta Mareykan bay kamid ah islaantaasi ayaa waxay ka dacwoonaysaa guri laga haysto oo janankii Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Beer oo ka dhintay oo ku yaala Baydhabo gudoomiyaha hadda jooga Aadan Madoobe ayay marka wariyihii baa yiri anagu cadeyn mahna iyadii abaabada soo taagan marka taana waa inay warbaahintu maaragtay ay aad uga fiirsadaan waxyaabaha ay dhahayaan ama qaabka dadka horseyn marka salaamaana qodobka shiikha waliba inaan ku yiri dul istaagto waan yara jeclaan aad baad u mahadsantiin aad u mahadsantahay walaal Jibriil aad u ku raaciyo salaamaano hal mar ku socon aad u mahadsantahay freelance journalist aad baan maaragtay kula socdaa adii hore fadhiyay media-haaga marka thank you maaragtay effortiga aad gelisay and investigation kan iyo howlaha kan niyo horta mid arrintan meesha ay ka yimaadeen maraakiibta ama markabku meesha ay u socdaan waxay sidaan waxaan u malaynayaa hadda adduunka heerku marayo in la iska weydiiyo oo kind of investigation oo interrogator iska weydiiyo mooyaane they already know meeshu ka soo baxay iyo wuxuu sido iyo meeshu u socdo inta badan maraakiibta badda marayso dhan waa la ogyahay maraan dhegeysanay saaxiibkay Cabdullaahi Bidaan oo wasiirkii hore ee kalluumaysiga ee Soomaaliya xilligii farmaajo oo uu ka warramayay sida maraakiibta badda maraysa si ku ogaan kartaan baa la yiri markabka Soomaaliya ka kalluumaysanaya iyo midkan ka kalluumaysanaya baalaha meesha ka wada yaacaya si ku garan kartaan marka inaan u galo arrintaas marba laakiin si fiican buu sharaxay anigoo tixraacaya wareysigaas iyo siduu u sharaxay u malayn maayo inuu shay kaga jiro Mareykanku markabkaas wuxuu sida iyo meesha ka soo baxay iyo cidda maaragtay uu raran yahay wuxuu dhan information uu garanaya laakiin arrinta aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan at the end of the day the subjectiga case kan
oo dadka uu waxyeelada ku yahay ama ay anfariirka ku noqonayso ama culayska maaragtay ay rabta inay ka falceliyaan waa dowladda soomaaliya. ma la xiriirtay dowladda soomaaliya arrintan ma la socotaa wax falcelinaysa ma ka sameeyaan? waa mahadsanta. aad u mahadsan tahay. haddaan soo koobo su-aasha walaalkii hore jibriil ku saabsaneed arrintii sheekh cabdinaasir ilaahay u naxariisto. jibriil haddaan soo koobo sheekh cabdinaasir waxaa shirqoolay somaliland. qorshaha kismaayo lagu geeyey waxaa lahayd somaliland marka la soo koobo. waana arrintaas waa arrin caddayn leh oo yacni biyo kama dhibcaana in uu kismaayo tago, kuwa kismaayo ku casuumay iyo kuwa yacni isku xidhnaayeen iyo hargeysa baa la iskaga xidhnaa. qorshaha lagu geeyey kismaayona wuxuu ahaa in la dilo keliya. simbali shiikhana kuwii casuumay baa dilay. arrintaana waxaa ka dambeysay somaliland baa ka dambeysay qorshaheeda 100% lahayd. waxaana ahayd qorshahaasi mar horeed shiikhan in la dilo. dee tiisina may noqon oo yacni tiisina ma noqon. markuu lascaanood joogay laba arrimood oo culays haya baa yimid. ka horta shiikhu markuu lascaanood joogo wuu is ilaali jiray oo wuxuu haysan jiray ilaala. waxaa laga sheegay in 2 nin uu haystay, nin baa la soco jiray mar walba oo yacni aan ka daba hari jirin. marka taas way yara adkaysay. talabaad ee adkaysay markii dambe lagu heshiiyey qolyaha shirqoolkooda shaqeynaya ku heshiiyeen waxay ahayd hadii lascaanood lagu dilo inay tanoo kale ka dhici lahayd. tan maanta mid ka daran inay ka dhici lahayd. inay ka dhaco way ayagoo way ogaayeen dadkan rabitaanka meeshan dadkan inuu ka sii jeedo. marka sheekh cabdinaasir ilaahay u naxariisto. runtiina waxaan aaminsanahay waa waxyaalaha dhiiggiisa, waxyaalahan masiibooyinkan dhacay soo dedejiyey inay ka mid tahay baa aaminsanahay. oo marka laga hadlayo dhinaca maaragtay rububiyada iyo dee maaragtay inaynu dad islaam ahayn nahay baan aaminsanahay. marka sheekh cabdinaasir waa la shirqoolay, shirqool baa lagu dilay. xamar baa lagu damcay in lagu dilo. xamar markuu joogay sheekh cabdinaasir de gurtink waxay ahayd niman culamaa baa jooga oo groupkiisa ah. culimada waddanka joogtaa sidaad ogtahay waxaa jira hadda maqaal baan ka qorayaa insha allah firqooyinka soomaaliya waa kala firqo. marka culimada ugu awooda badan hadeerto xagga ganacsiga iyo xagga galaangalka markay noqoto ayuu ku jiray oo ictisaamka nimanka la yiraahdo beriga hore ex-itixaad. markaan culimadaasaa xadiray oo hotel fiican bay dejiyeen oo gaari proof ay siiyeen in weliba sheekh bashiir la yiraahdo iyo raggaasaa maaragtay aad u ilaalinayay oo iyagu dee dabcan aad loo daba socdo culimadaas. marka aad baa la sugu dayay xamar in lagu shirqoolo, laakiin xamar way adkaatay in lagu dilo. laakiin kismaayo way fududaatay leanna gacantaba waxaa ku hayeyba yacni dadkii shirqoolay. waxaa soo diray arrintai barnaamijkan iyo arrinta kitaabka la duubayo iyo arrin kaloo la yidhi waa na dhexdhexaadinaysaaba hargeysa laga soo abaabuliyey. simply wax sirdoonka somaliland iyo shabaabka wada shaqeeyaan buha. marka taasaan kaga tegey. ta mustafe haddaan usoo noqdo arrinta mustafe ahayd dowladda soomaaliya ma weydiisay. dowladda soomaaliya waan weydiiyey, laakiin arrintan dowladda soomaaliya waxay codsadeen inays hadda doonayaan ka hadlaan laakiin inay og yihiin kana shaqeynaya. intaasay ku gaabsadeen. marka maadaama wariyaasha annaga markaad wax baaraysid gaar ahaan marka rabtidan maran walba xog hesho waxaa mamnuuca inaad faafiso xogta xogta waayo ishaa ka muhiimsan xogta. waayo waxaa laga yaabaa xogtan maanta aad heshay mid kasii muhiimsan inaad beri heshid. sidaa daraaddeed dowladda soomaaliyeed way og tahay dabcan wayna ka shaqeynaysaa arrintan. waxna way dabcan de way ka geysan doontaa sidaan uga aaminsanahay oo de waa mas-uuliyadeedii. tan waa mas-uuliyaddii muwaadiniinta soomaaliyeed ama xamar ha joogeen ama beledweyne ha joogeen ama lascaanood ha joogeen ama hargeysaba ha joogeen de iyaga saar inay badbaadiso marka muwaadiniinta soomaaliyeed oo maalin walba la qarxinayo la dilayo hubka sharci darrada loo keenayo waa runtii waa jirta. tan kale arrintan dhib kalena way leedahay oo dowladdu waxay rabtaa qorshihii cunaqabataynta hubka laga qaadaya ayay wada. nidaamkaasi hadeerto yacni iska laftiisa halis buu ku siiya oo in la farsameeyo waxyaala laga hadla. hadda marka waxaa laga hadlayaa in dowladda soomaaliya hubka qaabka soomaaliya lagu fasaxayo uu noqdo oo keliya qaabkii exemption baa awalba jiray. dowladda soomaaliyeed waxay heli jirtay in hubka ay dal weydiisato. tusaale ahaan waxaa jiray mar sacuudigu uu hub rasaasa oo aad u badan oo 2018 soomaaliya shiinaha uga soo gaday 52 milyan u geliyey oo rasaas bay u badneed hubkaasi. kolka maxay dowladdu sameey jirtay nidaamka la maraa waxa weeye in ay sacuudiga warqad ka soo qaado oo sacuudiga ku taageeray lacagtii warqadna shiinaha laga soo qaado. shiinaha hubkii laga dalbaday noocyadiisii intuu ka kooban yahay lambaradii wixii oo dhan wata la isku attach gareeyo. wasaaradda arrimaha dibadda qaado folder ku dirto kadibna ay u dirto golaha ammaanka qaramada jooga. xubnahaas ay codsadaan guddiga expertiga u geeyaan laga tafniido
dabadeedna haddana loo sii gudbiyo wadada mid looga goglaaleeyo laabi waxa luqadda qalaad looga yaqaano oo goglaale baa la yahay Soomaaliga oo mid loola maartay tacaamul talaansi hanaankaasi mari jirtay waa hanaan markaa yacni liidnimo ah oo markaad eegto wadan ma tiid marka taa u fiiriso yacni maanta inaad tiraahdo hubban soo iibsanaya oo ciidankayga qarankan qalabkiisan hub soo iibsanaya heblow iyo ogolow kan kale ogow kan kale koobigan qaado يعني arrin aad u marka hadda waxa la sheegaya in nidaam laakiin aan ahayn in maraakiibtan oo kale iska soo qulqusho oo maamul goboleedadan iyo dadkan aan mas'uuliyadda haysanin aan mas'uuliyiinta ahayn mas'uuliyadda waxay sameynayaan sida musabixi oo kale hubkiina uu gacanta ugu gali karin dawladda Soomaaliyeedna ay u hesho galaangal taasoo xujo ku noqon doonta dawladda Soomaaliyeed qaabka uu maamuli doonto lafteeduna inay u wado marka dawladdu marka ma rabto arrintan inay hadda ka hadasho sababaha jira awgeed oo ay ka mid tahay taa cunaq wataynta ay lug dhibaato ku sii noqon karto oo ay arrintan iskii hortaagi karto iyo in la sii qaado iyo haddii la leeyahay dawladda Soomaaliyeed xujooyinka ku xidhan waxaa ka mid ah badii oo dhan ma xukuntaan dhibaato badan baa idinka haysata yani waxaasoo dhan oo shuruud ah iyo su'aalo badan baa saaran waxay ila tahay hadday dawladda Soomaaliyeed ciidankii lasoo tababaray ciidanka Eritrea ka yimid oo 1500 oo nin oo badmaaxiina ku jiraan la qalabeeyo dhowr doonyood iyo dhowr xabo drones la siiyo in ay labada badood ee wadanka ku yaalaba badweyntan India iyo tan casba labadaba ay ka howlgeli karaan isla markaana ay badda oo dhan hilaadi karaan kuna kurwareegi karaan ayaan aaminsanahay taana waxay la tahay inay niyadda ku hayaan Djibouti qadiyadeeda waa run dhowr jeer bay soo noqotay waan ilaaween marka aan ka hadlo horta annaga waryaal baan nahay wariyuuna inta badan cadayn uu helo baa muhiim u ah markuu wartabinayo oo hadda waxaan haynaa waa cadaymo itusoo taabsi ah xogtan hadda tusaale ahaan Djibouti kuma xusna laakiin waxaa jirta dareen aad u weyn oo runtii aad u ballaaran oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan oo Djibouti ay ka qabaan mar walba leeyihiin ama maamulkan meesha jooga ha noqdo ama ha noqdo yani qaabka ay arrimahan u address gareynaya ama ha noqdo yani arrimaha sooyaalka oo dadka Soomaaliyeed ay u arkaan Djibouti marar badan arrinta uu ugu xumeeyay Djibouti uu hadeerto lagu cadeey karayay oo cadeedo Soomaaliya u geysatay anigu intan ogahay waa arrintii waagi Kenya iyo Soomaaliya isqabteen Kenya jabhadda Soomaaliya ku samaysay arrintaas arrin xun bay ahayd arrin cadeyn lana way Djibouti iyaga go'aanka soo saaray qoraalka soo saaray arrin marka laga filayay ma ahayn waana arrin runtii kor u soo qaaday ama soo saartay sida ay Djibouti ka rabto Soomaaliya ama waa maxay Djibouti waxay kale anigu waxay la tahay arrintaas arrin ka weyn inaysan jirin dadka Soomaaliyeed xubada inay islaahay guud xaq raadina igad ka socdo Djibouti loo wakiishay oo la yiri Soomaaliya way cabanaysaa arrintaas bal Soomaaliya waxay leedahay xuduudeeda activity baa ka socota ciidamo baa lagu soo daabulaya Djibouti arrintaas ay u maareysay runtii arrin ceeb ah oo taariikhi ah ayay laakiin arrimahan kale Djibouti waxyaalaha hadeerto golaamaanka qaramada midoobay la wadaagay waxaa ka mid ah xog aan weli soo bixin oo Djibouti dhinac ka khusaysa oo oranaysa tusaale ahaan Djibouti inay behalf of maartay Djibouti ay ku soo iibsato Soomaaliya lacagta ay bixiso kadibna saa loo soo gudbiyo hanaan noocaas iyo qorshe noocaas uu jiraa oo socda laakiin arrintaas waraaqeedii cadeynteedii anigu ma wada hayo sida daraadeed waxyaalahaasi waa ilaa xad waa rumors ilaa hadeerto marka waxay ila tahay in Djibouti waa wadan Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ku dhaqan yihiin waxaan arrintaas si fiican uga hadlay Axmed marka taa intaasan kaga gudbaya insha Allah marka ku soco Zakariya hanadna baa kugu xiga dabada walaalayaal waa soo gabagabay doona insha Allah Zakariya ku soco brother Zakariya Dr. Zakariya دكتور كسعو مود باكو جرتا دكتوره اوكي وكاس عطار سليمان حاشيو waa mahadsan tahay niyahow adiga iyo yaasiinba waa mahadsan tihiin runtii mawduucan aad soo qaateen waa idinla joogeen niyahow hadda waxaan u soo qabsaday ummadda kale meesha ku jirtana waan salaamaya dhammaantood oo ay ugu horeysa waxa weeye diiwaanadayda heer federaal igu matashay waxa weeye Addis Ababa Samson inta marka laga yimaado niyo su'aal baan halka iga soo baxday Allahu naxariista Sheekh Cabdi Naasir iyo baaristiisii Saleemaan Xaashi waxaan ku weydiinayaa maadaama aad xaggan saxaafadda iyo baarista iyo galaangal badan aad leedahay bil ka hor intaan rabaan soo gelin oo anigu halka Nairobi hadda aan joogo aan weliba imaan waxaa soo baxay siyaasiyiin gaar ahaan nin odaya oo
ka hadlayay kayskii saade cali warsame allah u naxariistay oo uu leeyahay saade cali ma aanay dilin al-shabaab dad badanna waxay tuhunsan yihiin oo dadkii ay ka soo jeeday iyo ummad soomaaliyeed oo fara badan leh in saade cali kayskeedii la dhayarsaday oo aanay al-shabaab dilin ma kugu jirtaa talada saade cali in waxaweye kayskeedii mar labaad la soo nooleeyo oo tacab iyo juhdi iyo maalba lagu bixiyo oo odaygaa hadlay iyo odayaashaa hadlay maalmo dhoweyd oo ilaahay ka hadalsiiyey in lala xidhiidho oo waxa weeye ilaa iyo halka ugu dambeysa laga daba tago su-aasha waxa weeye su-aashan mid lamida waxa weeye gabadhii la odhan jiray hodaleeye allah u naxariistee ee aqoon-yahamada ahayd ee ka soo jeeday yar iyo saade cali iyo sheekh cabdinaasir saddexduba waxay ka soo jeedeen SSC hodanaaleeye maalmihii lagu dilayay kismaayo anigoo buuhoodla fasaxu jooga ayaa twiitka waxay soo dhigtay arrin ku saabsan bileydka baabuurta ama taarikada dhibaatada lagu hayo reer SSC gaar ahaan reer laascaanood isla markii ay soo dhigtay maalmo kadib kismaayo ay tagtay waa la qarxiyey anigu maalintii ay soo dhigtay allah u naxariistay hodanaaleeye markiiba dareen baa galay oo waxaans waniyo amay kuwi sababta codkeedu meel fog buu gaadhay amay khaarajiyaan markaa kiisas baa isku xiran dad reer SSC oo labeentii ummadda soomaaliyeed ahayd oo sheekh ka mid yahay oo hodanaaleeye ka mid tahay iyo saade cali marka arrintaas waxa weeye bal mawduucana kuma saabsanaa laakiin intaasaan ku weydiinayaa mukhtaar waa mahadsan tahay dad badan oo waxgal oo soomaaliyeed baa la dilay it's not only SSC dad badan oo maaragtay waxtar leh oo ummaddan soomaaliyeed qiime ku dhex lahaa oo yacni bulshada soomaaliyeed gobolladoo dhan ka soo jeeday oo dhaqaatiir leh oo aqoon-yahan leh oo waxgarad leh oo odayaal dhaqameed leh baa la dilay it's not only wax la oran karo maaha uun haddii dhowr qof oo de miisaanle oo de gobollada kasoo jeeday la dilay de lama yacni kama duwanaa dadkaas de la dilayay waa run tusaale ahaan de qaarkood waa fiiro gaaray leeyihiin sida doctor sheikhaas oo kale sheekh cabdinaasir oo kale laakiin waxay ila tahay uun de arrinta hadda hoteelka lagu qarxiyey hodanaaleeye dad badan baa la dhintay oo mas-uuliyiin ah oo dee maamulka jubbalandna ka tirsanaa xildhibaanaa ku jiray wasiir hore oo xataa isageedii ah oo jubbalandna wasiir ka ahaa ayaa ku jiray marka waxay ila tahay in de kiiska saade cali oo si gaar ah asagana ii weydiisay dee 19 xildhibaan baa la dilay xilligii saade cali lafteeda ogow waqtigaas xildhibaanadeedii 19 baa la dilay ka mid ahayd marka way fiican tahay dadka oo dhan in la baaro oo de baaritaan gaara lagu sameeyo oo la baaro way iska fiican tahay laakiin lamana oran karo de boqolkiiba boqol dadka shabaab baa wadalaysay shabaab marar badan waxaa loo isticmaalaa waa platform la isticmaalo oo yani the kind of mafia platform buu noqday hadeerto oo hanaankii hore ay ku socdeen kuma socdaan oo dad baa hadeerto hebel baa lagu odhanaya ii dilo hebel baa la dilaya marka waxay la tahay de haddii waxay ku ficnaan lahayd inay hay-adaha dowladdu ay baaritaana soo saaraan waxaan moodayay saade cali in dadkii la dila soo qabtayba oo maxkamad mar lasoo taagay oo dil toogash lagu xukumay aan arkay nin laga hadal siinayo faasiil ka bixinaya siduu dilay marka kolley dad badan oo qiimo badan baa lagu dilay muqdisho iyo xamar lagu dilay waxaana anigu mar walba aan dareensanahay inagu maadaama dad soomaaliyeed baynu nahay waa inaynu ummadda soomaaliyed oo dhan mar walba aynu u wada danqannaa oo u wada aragnaa inay isku wada qiimahaayeen taa waa ka soconana hanad walaal kusoo dhawow dee ninkala doctor sakariya waa la maqli waayey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لي مقلام في العيا مركة كوبات codkaagu waa yara maaniga mise هذا من لما hanad aad loo maqlo السلام hadda ku عليكم maqlaya وما هتسنتهين دمان سليمان ياسين يتيم كهرفدي ميديا warbixintan markaan galabta arkay maadaama laftarkaygu aan qaybta ku jiro waxaan galay raadin dheeriya investigation dhinacayga inaan gayo hadduu alla idmana article ban hadda gacanta ku hayaa gabagaba ii maray inaan kasoo daawac rabo marka waxaan uga mahadcelinayaa horfadhi media kulley wixii aan soo qorana waa idinla soo wadaagi doonaa intaas inaan idin sheegaan rabay waxaana ku dhiirigelinayaa dadaalka awadiin iyo sida investigation journalismka u samaynaysiin intaas inaan idinku bogaadiyaan rabay hadduu alla idmana wixii aan soo qora idinla soo wadaagi doonaa waana mahadsantihiin
aad baad mahadsantay walaal. Soo dhawow insha allah ila socodsi haddii la haydno. Dr. Zakariya walaal mana maqlaysaa? waayahay. waa soo gebagabeynaynaa. Caliima aan ku soo dhaweeyo qofka ugu dambeeyana ka dhigo, kolkaa waa soo xidhi doonaa. Caliima ku soco. Saleymaan iyo Yaasiinba waa idin salaamay. Maqalkeyga horta ma fiicno, saxaabta kulli waa idin wada salaamada, Ramadaan kariin aa idin leeyahay. Koley idinka inaana afurina laga yaabaa, horeer Maraykan haddaad tihiin, annaga suxuurtiyaaba noo soo dhow. Marka aniga waxaa la yaabo la anfariiray arrintan oo motion wax la naqday oo la yaabay. أول بتونكو ونقول إن السؤال لا شخص إنما كان كفر طوبك تونكو نقول روحي هاد هجامياش أو يعني أب وحكي ماذا هرجيسو شنمي أما صلح ساسا أمالها أو هجاميين أنا كنت نقول هاد عدين ما أنت تماضو كل دولة الصوماليين ويكاد لدون أنا كرير مقدشة هدانا ناي أنت ما أنت نوغم حساب مالخو 1 milyan oo qof ka badan naga maqan maalina 500 oo naga dhimatay oo intaas oo kun naga dhaawacantay marka Mareykanka maadaama uu soo bandhigay hadda su'aasha ku weydiirba waxay tahay Saleymaanow Mareykanka maanta mar hore inuu hore u ogaay ma laga yaabaa oo hadda maadaama adduunkii iska qasan yahay reer galbeedkii wixii meelaha ka soo circirina dagaalka Ruushka lagu jiro Soomaaliya maanta wuxuu rabiyaa inuu mideeyo oo yani nimankan markay waxaan sameeyaan wuu ogaay ma la dhihi karaa marka su'aashaas ku weydiin rabo marka ku salaamaya mar labaad nooca idin leeyahay Ramadaan kariim. waa mahadsantay Caliima, aad iyo aad waa mahadsantahay walaashay. Maraykanka horta waxaa ogaataan dadkan shisheeyaha ahi ciduna waxba kuu qaba mise dadaada waxa qabsan ummadaada adduunkan oo dhan. dowladda Maraykanku uma doorna inay Soomaali ay wax tarto ama midayso ama wax u qabato ama ay cadowga ka ilaaliso ama ay yani ay runtii ay wax tarto. Maraykanku markuu inta badda cas maraakiibtiisa joogtay aad waxay ugu mashquulsanaayeen inay Iiraan ka hortagaan oo Iiraan aysan gobolkaasi qabsan oo gobolka iyo gacanka Hormuz ayaa horey u qabsatay san ku darsan gacankan Bab al-Mandab taasaa kala weyneed oo iyaga kaasaa dantooda badan ku jirtaa. marka leena inaga runtii haddayna inagu dowladeeni aysan waxba qabanayno dadkeena inagu aysan wariyaasheeni waxba qabanayno iska fadhiyaan oo aysan waxba baaraynin oo waxba keenaynin oo yani dhacdooyinka maalinta dhaca iyo in dad uun laga aflagaadeeyo warbaahinta uun ay ku ekaadeen de ma cidna waxa ku qabayso horta waa marka koobaad. laakiinse markan oo kale marka arrintu sidan oo kale noqoto inay heer markab la marayo waxa laga yaabaa markii hore in xoogaa doomahaas yaryar raashinka la keenayo xoogaa qoryaaya la soo saari jiray iyo xoogaa qaraxyaa iyo la keeni jiray inkastoo de kuwaas way de masiibo weyn geysanayeen. laakiin hadda waxaa la marayaa in maraakiib de caalam ka babanayo lasoo raro oo noocyo intaasoo milyan oo hub aad aragteen oo halkaa ku qoran noocyadaas oo dhan lasoo saaray. waa yani waxay mareen arrintu waxay u egtahay inay alamtarana soo dhaaftay. de waxay la tahay hadda horta laakiinse in ay arrintii fashilantay oo xag rabbi iyo xag bini aadan labadaba ka fashilantay. waxayse ila tahay inay arrintan dhali doonto waxyaalo badan oo banaanka yimaada xooga badan oo banaanka yimaada in hordhac u tahay oo runtii barbilow la joogo siina socod doona mustaqbalka dhow. waa mahadsanta. ugu dambayn Yaasiin miyaad walaal wax ku daraysaa? waan soo xidhi rabaa. mudane saad baad u mahadsan tahay waxba kuma dari lahayn runtii nin baa aada u soo codsanayay waan soo saaray somehow uu soo qabsoomi waayey Axmed Xuseen ninka la yidhaahdo oo runtii dhalinyarada aada u firfircoon isaguna ka mid ah baa doonayay inuu wax yar ku darsado laakiin sida muuqataa khadkiisu wuu xun yahay aan soo qabsan karahayn inta aynu kusoo gabagabayno aada baad u mahadsan tahay. Axmed anaa soo qabsan. waad salaamaya aad iyo aad baad mahadsantihiin Yaasiin iyo wariye sare Suleymaan waad salaamaya caawa barnaamijka waa idinla socday sida wacanad baaritaanka u samaysana waan bogaadinayaa aadna waan ugu faraxsanahay
waxaan qabay anu laba su-aalood midna waa su-aal midna waa codsi su-aasha aan qaba waxay tahay sulaymaan waad sheegtay arrinkan in ay gudbiyaan hubka iyo arrimahan ay khaalista ku ah ama lagu waxyeeleynayaba ummadda soomaaliyeed wadamada deriska ah sida etoobiya oo kale miyayna ka warqabin haddii ka warqabeenna maxay u dhowranayeen taas waa midda kale aan raacsanayana waxay tahay codsigayga maadaama sulaymaan xaashi oo wariye sare iyo horfadhi media oo soomaalidu aad iyo aad maanta kaalin weyn ugu jirta ayaa waxaan ku codsan lahaa sidaydin wada ogtihiinba soomaali galbeed marka laga hadlayo gaar ahaan galbeedka gobolka city ayaantan dhibaata ka taagan in dadkii shacabka xaa ku noolaa la xasuuqayo tii awalkii hore laga dhigi jiray colaadu ina dhexayso canfar iyo soomaali ayaa shalay waa kii hadlay ugaasi guud ee beelaha dega naagaas ugaas mustafe meeshana waxaa dadka ka barakicinaya ee dadka laynaya waa ciidanka qaranka etoobiya maantaduna u dambeysay dad shacaba mudaharaadii ayaa magaalada shacayra lagu xasuuqay marka bal waxaan ka cilmiyeena inay arrimahaas ay bal il gaara ku eegaan oo dadka ay u soo bandhigay aad iyo aad buu u dhibaataysan yihiin waa dad 5 sano u dambeysay xaggaa lagu xasuuqayay laga barakicinaya magaalooyinkoodii hawshaana bal inaydin haddaad horfudhi mediatiina waxaad ka codsanaynaa inaydin bal il gaara ku eegtaan oo arrimahaasna shacabka soomaaliyeed iyo caalamkuba ay idin soo bandhigtaan maadaama tiina codka dadka soomaaliyeed kuwa ku dhibaataysan soomaali galbeed ama soomaaliya meel kasta ay rajo aad u idinka qabaan oo aad u tihiinba mar walba waa idin soo bandhigtaan xogaha iyo xasadooyinka jira dadkaas kaalintooda inay kaalintiina ka qaadataan oo dadka balcodkooga idin caalami gaadhisaan baan ka codsanayna aad iyo aad baad mahadsantihiin sulaymaan iyo yaasiin aad baad mahadsantahay walaal xuseen xuseen arrintaas maxay dowladuhu wax uga qaban waayeen iyo ma ogaayeen horta waxaan kala tahay laba arrimood oo kala duwan inay dowladdu wax ka qabato arrintaasi waxaa laga yaabaa inay danteedu aysan kuba jirin oo dowladaha shisheeye sida markaa iyaga dambe ugu jirin inay wax ka qabtaan arrintaas ama ha noqoto danta laga leeyahay soomaali inaysan awoodna yeelan soomaali isku baabaado hadda isdisho waad ogtahay maalin dhoweyta deerta waxay dhahdeen Ethiopia waxay dhahday waa dhexdhexaadina dhinacyada ergey usoo direen yacni meeshay marmareen waa iska tageen waxaa laga yaabaa inay intaas kaga ekayd oo dadka shisheeyuhu kuma khasbi karaan in marar badan oo kuma sii karaan yacni kuma maaragtay kuma dirqi karaan waxaa laga yaabaa inaysan dantooda ugu jirin hadda inay Soomaaliya nabad noqoto especially maamulkii TPLF ee halista ahaa meesha ka jiray oo iyagu ahaa dad Soomaalida isirhaana u neceb Soomaalida sidoo kalena qadiyad iyo ajende kala ahaa inaan Soomaaliya aysan abid dawlad noqon oo ajendayaashada waaweyn ay kamid ahayd oo qolo walba iyagu danahooda bay ka raaca jireen annaga xuduudayada iyo inta areada noo aynu ka amaan helno wixii aad samaynaysan idinkaydii jirtaa sameeya uun bay dhihi jireen waana arki jirtay in xitaa hogaamiye kooxeedada intay qoriya soo siiyaan ay isku gumaadi jireen xamar iyo Kismaayo iyo dhulkaas oo dhan ay Morgan iyo muxuu ahaa ninkii loo jiray Barre Ilaale iyo Muuse iyo Maxamed Dheere isku dili jireen caan bay yani Ethiopia hubka laga soo wada qaaday marka nidaam noocaas oo qowleysata ah ka jiray Ethiopia markii hore tan hadeerta damana waxay ila tahay inaysan iyagu kansho badan ba ugu helin waxay noqon lahayd ayagaaba isku mashquulsanaa oo iyaga dagaalna ku furmay runtiina ayagaaba marar badan Somalilandtaas iyo ka baqaya laga yaabaa in loo soo fariisto oo ay TPLF oo cilaaqad wanaagsan la lahaayeen inay halka ka soo turturto taasi waa tan ku saabsan dhibaatooyinka goboladaas ka dhaca Soomaali galbeed iyo dhulka Soomaaliyeed runtii dhowr jeerna waa ka warbixin waa ka diyaarinay tan aad hadda ka hadlisna maanta waan arkay ilaa xalay baan ka shaqay marka insha Allah bari barnaamijyada ku jirta hadii alla idmo oo waan arkayay arrimahaas dadna waan xiriir kala leeyahay meesha email la soo diray jiro dhalinyaro fiican oo deegaanka jooga oo xogaha maartay inta badan email waanan mar walbana waa qabnaa ummadda Soomaaliyeed kulley waa aragtaan oo ayagina waxa loo soo diray dad manxayaala oo warlords haraadigi nimankii dagaalka macayaashayaasha ahaa ayaa hadda iyo kow dagaalo sokeeye u curiyey oo dadkii ka haray jabhadihii markii horena dowladda Soomaaliyeed dumiyey kolkii dambana warlordska noqday ummadda Soomaaliyeed qabiilka isugu diray dadka ugu awoodu ku sii hadhay bay kamid yihiin hadda tusaale ahaan Maxamed Kaahin iyo wadaadkan Muuse Biixi la yiraahdo oo waa nimankii 80s-kii ilaa 80s-kii dhiigga Soomaaliyeed daadinayay kuwaas waxay dib dhac ku yihiin in ummadda Soomaaliyeed Soomaali galbeed oo kala hadda heer hesho waxay dabxeer ku yihiin ummadda Soomaaliyeed si nacsiyaan oo
dhibaato hor la sii dhigaan waa ka xunnahay runtii waana muujinaa mar walba in ay ummadda da'yarta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin dadkaas oo kale in iska xoreeyaan ama ay ka xoroobaan ama ay iska qabtaan si ay mustaqbalkooda u dhisaan way fiicnaa lahayd runtii isku soo tuutuub aad iyo aad aan idinka mahadcelinaya kasoo qaybgalkiina runtii akhyaartiin kala duwan ee maanta caawa halka sugan anaga maalin baa noo tahay dabcan waa soomanahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waa idinka mahadcelinaya inaad kasoo qayb gashay anaga 6 saacood meelahaas noo haray baan maanaya Afrika nooga haray 2 mees 4 saacood ma noo haray marka waxaan rajeynayaa inaad walaalaha aad barnaamijka xigeenka isugu imaan doono inaad waanad faafi kartaan qofkii raba inuu faafiyo barnaamijkaas iyo xogahaas waanad akhrisan kartaan oo idinku laftiina waad maartay study garee kartaan xogahaas iyo maartay dokumentiyadaas aan soo bandhignay ee ku saabsan arrimahaas hubka sharci darrada ah ee maartay la qabtay waxaanad runtii markaad akhrido oo aad si dib ah aad u fiiriso aad fahmi kartaa meesha masiibadu intay leeg tahay iyo luqadda meesha ku qoran iyo hubka meesha maraya intuu leeyahay iyo yacni dokumentiyada si la sugu baaritaanka la sameeyey ay dawladdu iska kaashadeen dawladdii ugu weyneyd adduunka Mareykanka iyo markii dawlad golaha ammaanka qaramada hadda gacanta ku hayaan waxaasoo waxay muujinayaan markaa arrimo ay tahay in laga baaraan dego la isweydiiyo ummadda Soomaaliyeed la iska laynayo iska soconaysa qaraxyadan iska jira xagee sabraygan ka yimaadaa xagee kiimikadan ummadda Soomaaliyeed lagu shubayo maalin walba lagu qarajinayo ma iska timaadaa miyay baxdaa sida beeraha oo sida beeraha u soo baxdaayo sida cambaha iyo mooska inoogu baxo ayaa looga soo jamama iyo looga soo gooyaa walaweyn maya waa yacni waa shabakado lacag baa lagu bixiyaa waa la soo gudbiyaa waa la keenaa waa maaragtay waa laga shaqaystaa dad baa ka macaasha oo u arka inay ku helayaan ku kasba karaan dhaqaalo ay adduunka kusii joogaan kadib ay arrintaa ka baxsadaan hadhowtana oo aan la dabagelin oo la ogaanin waxay la tahay markaa ummaddeena maalin walba ku leeyaanaysa waddankeena guud ahaantiis laga soo bilaabo Laascaanood ilaa iyo inta laga gaadhay Afmadow waa inta dadka lagu laayo intaas in dadka ummadda Soomaaliyeed lagu laayo oo ay Muqdisho dadku ugu dhintaan oo da'yarteeni iyo hooyooyinkii iyo kuwo maaragtay muhiim ummadda waxa oo wax tari kari lahaa in lagu dilo wax iska yar oo iska caadi oo qabatimi karno oo caadi kari karno ilama I think Soomaalidu waxay la mid noqotay kaneecadii bariga hore dadka ku dhici jirtay inaynu ka dhignay dilka oo kale iyo qaraxan iska soconaya yaa waxaan sabray garanaya waxaan yaa wada waxaan yaa maal gelinaya in la isweydiiyo oo laga hortago la baaro la maartay la barashagareeyo dawladaha lala joogo la yiraahdo sirdoonadii argixinta la dagaalanaabad leedihiin maxaad arrimaha wax uga qabalaadihiin in muwaadiniin baynu u nahnay wadamadan kale oo in cod baan siinaa qaar ka mid intooda cashuur bayna ga qaadaan cashuur baynu bixinaa يعني iskuuleenu ka aadnaayo oo waxbarashadooda ku bixinaa guriyayna ka kareysanahay oo nolosheena waxaan qabsanoo dhan 9% waxay ku baxdaa meesha joogno 10% ga aan wadankeena u dirno mooyaan marka waxay la tahay in mas'uuliyadahaas oo dhan ay jiraan oo ay taagan yihiin iblaa'aadinku iyo bini'aadamkuna uu wada hadalka uu isku fahmo iyo in uu ka dhiibiyo waxaan soconaya intaasaan ku xiraya aad iyo aad idin mahadnaqaya